kulan wacan daawadayaal halkani waa channelka Haga Media ku soo dhawaada qodobada warka duhur waxaana ugu waaweyn madaxweyne Farmaajo oo si cad u sheegay in Sheekh Umar uu ka joojiyay muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ka yeeshay doorashada Soomaaliya wafdi ka socda dawladda Qatar oo kulan qarsoodi ah la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo shaki soo kala dhex galay xisbiyada midoobay madaxda Alla Sunna oo sheegay inay qabanayaan doorasho ay ka madax banaan tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo amar adag dul dhigay xukuumadda iyo baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo dabayaaqada bishaan imaanaya magaalada Muqdisho xildhibaano sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka baxay ballantii uu la galay xisbiyada dalka ka jira iyo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin oo laga talbaday inuu hor yimaado baarlamaanka Soomaaliya si su'aalo loo weydiiyo waa 26 bisha 11 November sanadkuna waa 2019 u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu si cad u sheegay inuu joojiyay muxaadaradii uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah culimada Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo cod sir ah oo duubay banaanka la soo dhigay ayaa waxa uu sheegay asagoo la hadlayay culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca gaar ahaan suufiyada ku sugan magaalada Muqdisho inuu joojiyay muxaadaradii magaalada Muqdisho ku qaban lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah culimada Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sababtaasi wuxuu ku sheegay in uu doonayay in uu san dhicin isku dhaxmara culimada Soomaaliyeed isla markaana dhiig Soomaaliyeed uu ku daato garoonka Injineer Yariso ee magaalada Muqdisho cod laga duubay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ilaa 6 daqiiqo soconayay ayaa la soo galiyay baraha bulshada waxaana madaxweynaha uu la hadlayay culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca iyadoo culimada markii uu madaxweynuhu sheegay inuu joojiyay muxaadaradii Sheekh Umul uu ku qaban lahaa magaalada Muqdisho ay hal mar ku qeyliyeen Allahu Akbar waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu si cad u sheegay in muxaadaradaasi uu go'aan ku qaatay in la joojiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu xusay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in ammaanka dalka ay sugto si qaralaasay iyo isku dhacyo dhaca looga hortago Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in Sheekh Maxamed Cabdi Umul uu yahay muwaadin Soomaaliyeed xaqna uu ku leeyahay in magaalada Muqdisho uu ku qabto muxaadaro isagoo soo jeediyay in lagu soo dhaweeyo magaalada Muqdisho shiiqan oo ku tilmaamay inuu yahay mid marti ah dalka Soomaaliyana wax ku ool u ah dhawaan ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha diinta iyo waqafta iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Cabdi Umul ay sheegeen in ay joojiyeen muxaadaradii ka dhici lahayd magaalada Muqdisho sabab la xiriira balse hadalladaasi waxa meesha ka saaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si cad u sheegay inuu asaga uu mas'uul ka ahaa joojinta muxaadaradaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Soomaaliya Dolan Yamamoto ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta xalane ee magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxa looga hadlay doorashada soo socota safiirka Mareykanka arrimaha Soomaaliya Ambassador Dolan Yamamoto ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre u sheegay in laga doonayo in la dhameeyo khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada si ay u dhacdo dalka doorasho qof iyo cod ah dadka Soomaaliyeedna dhamaantood ay ku qanacsan yihiin danjiraha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay doonayso in meesha laga saaro kala qoqobnaanta u dhaxaysa siyaasiyiinta Soomaaliyeed isla markaana ay hal meel uga soo wada jeestaan sidii doorasho dalka uga dhici lahayd ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa u sheegay safiirka in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in sanadka 2022 in doorasho qof iyo cod dalka ay ka dhacdo taasna qorshaheeda mar hore ay bilaabeen dhawaana ay soo bandhigi doonaan wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku dadaalayso in dhammaan dhinacyada saamilayda siyaasadda Soomaaliya ay kala hadlaan nidaamka doorashada iyo qaabka doorashada ay dhici karto beesha caalamka iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ku dadaalaya in doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya isla markaana hay'adaha hadda jira aysan muddo kororsi samayn dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo xisbiyada dalka ka jira gaar ahaan xisbiyada ugu waaweyn ee hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray uu cadeeyay in doorasho ay ka dhici doonto dalkeena Soomaaliya waqtigii lagu talagalay oo aysan dhici doonin muddo kororsi ay ku darsadaan madaxda qaranka Soomaaliya
wafdi ka socda dowladda waddanka Qatar oo ka mid yahay wasiir dowlaha madaxtooyada Qatar ayaa kulan qarsoodi ah waxay magaalada Muqdisho kula qaateen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana kulankaas ka dhacay qasriga magaalada Muqdisho oo ka degan yahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya warar ay heshay warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiir dowlaha madaxtooyada waddanka Qatar ay kulan saacado qaatay ku yeesheen halkaasi lama oga waxyaabaha ay ka wada hadleen balse warar soo baxay waxay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu qanciyay inuu ka qayb qaato nidaamka dib u dhiska dalka Soomaaliya isla markaana uu yareeyo mucaaradnimada muddooyinkan dambe ay la soo shartageen madaxda xisbiyada sidoo kale warar soo baxay waxay sheegayaan in kulankaasi uu shaki kala dhex dhigay madaxda xisbiyada waxaana sidoo kale xisbiyada ay sheegeen in la doonayo in kulankaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu shaaciyo sababta ku qaliftay inuu kulan qarsoodi la qaato wafdi ka socda dowladda Qatar ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay dowladaha taageerada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha kulankan dhaxmaray madaxweynihii hore ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale wasiir dowlaha madaxtooyada Qatar ayaa sidoo kale wuxuu imaanayaa xilli dhawaan la soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay madaxda xisbiyada mucaaradka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in kulan degdeg ah oo ay yeesheen madaxda Ahlusunna wal Jameeca in kulankaasi ay ku go'aamiyeen in doorasho ay ku qabtaan deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug gaar ahaan magaalooyinka Dhuusamareeb martamaan iyo sidoo kale magaalada Gurceel madaxda Ahlusunna oo kale ah Macalin Maxamuud Al-Ashcari iyo Sheekh Shaakir ayaa kulan degdeg ah waxay ku qaateen xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb kulankaas ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorasho ka dhacda deegaanada Galmudug waxayna sheegeen in doorasho ay ka madax bannaan tahay ama aysan gacmaha kula jirin dowladda dhexe ay ku qaban doonaan halkaasi ma muuqato in doorasho ay dowladda Soomaaliya aysan wax ka ogeyn inay qabtaan mas'uuliyiinta maamulka Ahlusunna wal Jameeca مسؤولينta maamulka Ahlusunna wal Jameeca ayaa si weyn uga soo horjeeda nidaamka dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay ku wado waxayna sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay heshiisyadii la gashay ka baxday Ahlusunna wal Jameeca ayaa sidoo kale waxa ay tilmaameen inay doonayaan in heshiiskii dowladda dhexe ay la gashay sidii uu ahaado si meesha looga saaro khilaafka u dhaxeeya Ahlusunna wal Jameeca iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar adag wuxuu duldhigay xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya amarkan ayaa yimid ka gadaal markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu xilka qaadis ku sameeyay xeerariyihii guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir xukuumadda Soomaaliya iyo golaha sharci dejinta ayuu amray inay soo dhameystiraan sharciga guddiga adeega garsoorka dalka si garsoorka dalka iyo cadaaladda sal adag u yeeshaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu xusay in laga doonayo xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka in si degdeg ah ay u soo dhameystiraan xubnaha ka mid noqonaya guddiga adeega garsoorka dalka ayuu sheegay in muhiimad weyn uu u leeyahay dalkeena Soomaaliya si cadaaladda kor lagu qaado Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa la sheegay inuu imaanayo dabayaaqada bishan dhamaanaysa ee November warar ay baahisay warbaahinta waddanka Itoobiya ayaa waxa lagu sheegay in socdaal uu ku imaan doono magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa magaalada Muqdisho waxa uu yimid markii la doortay wax yar uun kadib waxaana lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho asagoo heshiisyo wax ku oor la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booqashada uu ku imaanaya mar kale magaalada Muqdisho ayaan la ogeyn balse warbaahinta waddanka Itoobiya waxa ay xaqiijisay in magaalada Muqdisho uu imaan doono dabayaaqada bisha November ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya madaxweynaha waddanka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Eritrea ayaa waxa ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in bariga Afrika wadamada ku yaala ay si nabadgelyo ah ay ku noolaadaan xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ballantii 4 maalin ka hor la galay xisbiyada dalka ka jira oo ka baxay sababtaasi ayuu wuxuu sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xisbiyada kulmay ay ku heshiiyeen in la siyaasadeyn ciidamada qaranka Soomaaliya taas bedelkeedana la siyaasiyay ciidamada oo laga baxay balantii la wada dhigtay waxa uu sheegay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si sharci darro ah looga joojiyay safar ay ku tagi lahayd gobolada dalkeena Soomaaliya taas ayuu ku tilmaamay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu ka baxay balantii uu la galay madaxda xisbiyada wuxuuna tilmaamay in arrintaasi ay ahayd mid laga xumaado
dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxda xisbiyada oo ay kamid yihiin gudoomiyaha guud ee xisbiyada madasha qaran ee la yiraahdo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaar kamid ah xisbiyada kale ay ku kulmeen madaxtooyada Soomaaliya kaas oo ay ku gaareen heshiis dhowr qodob ka kooban oo ay kamid ahayd in ciidamada qaranka Soomaaliya aan siyaasadda loo adeegsan. ugu dambeyntiina taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fuad Yaasin Xaaji Daahir ayaa laga dalbaday inuu hor yimaado baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. baarlamaanka Soomaaliya kulan ay ku yeelanayaan maanta waxaa hortagi doona wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka biliiska waxaana wax laga weydiin doonaa xaaladda guud ee amniga dalka Soomaaliya. xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in kulanka maanta ay ku hortagayaan wasiirka amniga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka biliiska inuu ku soo darsamo oo uu yimaado taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fuad Yaasin Xaaji Daahir. warkii oo aad kala socoteen channelka Haga Media waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.